Assalaamu calaykum walaalayaal kusoo dhawaada Kurweyne Academy videoga ugu horeeya ee mabda'a koobaad videogan waxaa uga hadli doonaa insha Allah xaaladda suuqa ama waxa loo yaqaano market condition. Muhiimadda mabda'a koobaad, raadi suuq dhaqdhaqaaqaya oo socda, ka fogow suuq aan dhinacna u socon. Tallaabada ugu horeysa ee falanqaynta farsamada qiimaha waa in la garto xaaladda uu suuqa ku sugan yahay. Had iyo goor suuqa ayaa ku sugnaan karo mid ka mid ah saddexdan xaaladood ee soo socda. xaaladda koobaad waa suuq jihaysan oo suuq jihadiisa waa caddahay oo waxa loo yaqaano trending market. xaaladda labaad waa suuq isku noqnoqonayo ama waxa loo yaqaano range bound market. xaaladda saddexaad waa suuq goosgoos badan aan dhinac u socon ee loo yaqaano choppy ama indecisive market. Marka saddexdan xaaladood ayaa ka hadli doonaa mabda'a koobaadna saddexdan xaaladood ayaa insha Allah ku baran doontaa iyo waxay kala yihiin iyo sida loo kala garto. xaaladda koobaad ee suuq jihaysan. Marka suuqan waa suuq waxa loo yaqaano trending market. suuqa xaaladiisa jihaysan tahay ayaa ku siin kara fursado ganacsi oo wanaagsan. Istiraatiijiyadaha ganacsiga FX-ka badankood waxaa loogu talagalay suuq xaaladiisa jihaysan tahay. Isbedelada kor u kaca ama waxa loo yaqaano bullish market ayaa ah suuq sameynayo kor u kac sareeya iyo hoos u dhac sareeya. marka sawirada soo socda ku arki doontaa videoga labaad ee mabda'a koobaadna caadi trading view inta furna caadi ku tusin doonaa suuqyo kala duwan ku tusinayna oo xaaladiisa ay tahay suuq xaaladiisu jihaysan tahay. Isbedelada hoos u dhaca ama waxa loo yaqaano bearish market waa suuq sameynaya hoos u dhac iyo hoos u dhac hooseeya. waa arki doontaa sawirada soo socda hadda idin tusinaya. marka saa ujeedaan isbedelo kor u kaca suuqan waa suuq saa ujeedaan waa suuq cad oo kor u socda. muxuu sameynayaa sare hoos sare sare hooseeya sare hooseeya sare. marka suuq xaaladiisu ay jihaysan tahay sameynayana isbedel kor u kaca ayaa sameynaya sareeya sare iyo hooseeya sareeyaal isku xigo. marka wuxuu sameynayaa sareeya sare hooseeya sare isku xigaan ama waxa loo yaqaano higher highs iyo higher lows. higher high higher lows higher high higher lows waa suuq jihadiisu caddahay kor u socdo. mar walbana waxaa fiican markuu dib u soo laabto in laga faa'iideysto istiraatiijiyada mid ka mid ah waxaa loogu talagalay in markuu suuqa dib u soo laabto ka faa'iideystid kor ula sii raacday. mid ka mid istiraatiijiyaasha midda kalena hoos baa ula raaci kartaa. marka suuq markay xaaladiisa jihaysan tahay labada dhinacba markuu u socdo waa ka faa'iideysan kartaa. midda faa'iidadeeda aad iyo aad u badan tahayna waa midda markaa kor ula sii raacisid sababtoo ah orodkan kor u kaca ayaa dheer badana. marka isbedelada hoos u dhaca waxaa lagu garanaa suuq sameynayo hooseeya sare iyo hooseeya hoose. hadda ku tusinana waa kana hoos usoo dhacay kor u aaday saruu sameeyey hooseeya hoose hooseeya sare hooseeya hoose hooseeya sare saas u soconaya. marka waa suuq sameynayo low high lower lows and lower highs lower low lower highs kan waa mid hoos u dhaca waa bilcagsiga suuqan. marka saa ujeedid tanna laftirkeeda waxaa fiican markii aad ka gelaysid middan oo kor hoos ula raacaysid orodkan dheerka. istiraatiijiyaasha mid ka mid ah saa idiin sheegay way ka faa'iideysanaysaa dib u laabashadan laftirkeeda. marka taas waa xaaladda koobaad. hadda sawir caadi ah ku tusinana oo trading view videoga labaadna trading view caadi u furana waa arkaysaa. saa ujeedaan sawirkan suuqan muxuu sameynayaa kor u kac caadiya. wuxuu sameynayaa higher highs iyo higher lows higher high higher lows kor buu u socdaa. tanna waa bilcagsigeeda suuq sameynayo lower lows iyo lower highs lower low lower highs lower low lower highs waa suuq hoos u dhaca. marka u gudubno xaaladda labaad ee suuqa waa suuq isku noqnoqosha. suuqa xaaladiisu isku noqoshada tahay ama ranging waxaa loo yaqaanaa markuu qiimaha suuqa uu soconayo dhinac una dhexeeyo laba qiimood. marka saa ujeedaan waa kana waa suuq u dhexeeya laba qiimood oo cad, qiimo hoose iyo qiimo kore. mar walbuu qiimaha kore tago hoos usoo dhacaya, mar walbuu qiimaha hoose imaadana kor u laabanaya. waa kana waa suuq isku noqnoqoshaa. suuqa markii xaaladiisa sidaan tahayna istiraatiijiyaasha mid ka mid waa ka faa'iideysanaa waana loo isticmaalaa. waa waxa loo yaqaano range bound market. waa kana sawir kale labadan qiimo u dhexeeya. marka insha Allah videoga labaadna waa ku arki doontaan anakoo trading view intaa furna ka tusinayna xaaladda labaad si cad baa ku tusin doonaa waana fahmi doontaa insha Allah. waxaana rabaa markii aad videodan aad dhamaysaan mabda walba markaad dhamaysid inaad practical ku samaysid practical oo ku barbaratid oo trading view intaa furtid xaaladahan raadisid insha Allah. xaaladda ugu dambeyso ee suuqa uu ku jiri karo waa suuq goosgoos waa waxa loo yaqaano choppy market ama indecisive. xaaladda saddexaad ee suuqa
waa suuq goos badan ama jah wareersan. Marka xaaladan waxaa lagu gartaa markaad aragto qiimaha suuqa oo isdaba joogo, isbedbedelaya, kor u kacayo, hoosna u dhacayo, laakiin isbedelkiisu ay yar tahay markii loo fiiriyo dhaqdhaqaaqa. Marka marba meel buu aadaa, marba dhinac buu aadaa. Haddii aad aragto suuq goos iyo jah wareer badan, u gudub lacago kale ha ka ganacsan suuqaas. Marka suuqa casharka waa cashar aad iyo aad muhiim ah. Markay aragtay suuq goos badan, jihadiisu aysan caddeen, xaaladiisu aysan ahayn suuq laba qiimo u dhexeeyo, ka fogow suuqaas, ha ka ganacsanin insha Allah. Marka waa kuwana sawiro saa u jeedaan, marba dhinac buu aadaya, marba dhinac, mid kalena waa kana, marba dhinac buu aadaya. Marka insha Allah video ugu horeeya ee mabda'a koowaad intaas kusoo gabagabayn doonaa. Videoga labaad baa ku xigo, kana faa'iidaysan insha Allah. Assalaamu calaykum.